بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلا وعل رمضان الكريم صاحبة قيمها قدرت إيقاعها لقمدلو ميلو البواد جوكتال يا مرحلة البواد القدا واللسان وحل هودة دكلا لهي رمضان مبارك. قرآنك يا حديثك يا حدودك إلهي حبيبك أدقونا حريرك سراعو حناني يدين توحوق يسونكو حناني يدين توحوق يسونكو. maanta waa maalintii 2aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana Allah u dala hadii uu raali ka noqdo muuqaalkeena aan ku eegi doonaa mowduuc marka muhiim ah oo la xiriira soonka iyo qalbiyada helitaanka marka xasiloolida nolosha. waa bisha sugayne ilaahay nasiye aynu saacidayne sooma ramadaanta. muuqaalkan waxa uu ka mid yahay muuqaalo taxala ah oo daawadayaasheenu aan ugu talagalnay inaan u soo baahilo inta loo guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. mar kale kula wacan saaxiibada qiimaha qadarinta iyo qaayaha laga badalow muuqaalkeena waxaan ku dul istaagi doonaa soonka qalbiga helitaanka marka xasiloolida. waxaa la eegi doonaa qalbiga sida marka looga nadiifiyo mashquulka adduunka. xasiloolida nolosha ayaan wax ka taaban doonaa waxaa kaloo aan eegi doonaa xiriirka ka dhaxeeya qalbiga iyo sidoo kale digriga. dardaaran ku saabsan soonka qalbiga ayaan idin soo baahil doonaa daqiiqadaha soo socda haddii Allah uu dale raali ka noqdo. xigmadaha culimada ee soonka iyo qalbiyada marka sida loo sifeeyo kama marla waxyaabaha aan idin soo baahil doono. qodobadaas ayaa daqiiqadaha ila soo aadan daawadayaal muuqaalkeena ku soo qaadan doona oo aad ku daawan doontaan. soo dhawaada saaxiibayaal. محمد مختاري صلوات الله على خير خلقي محمد مختاري. mar kale kulan wacan saaxiibada qiimaha badalow muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay soonka iyo qalbiga helitaanka xasiloolida. soonka dhabta ahi ma aha mid markaa ku kooban in markaa laga haro cuntada iyo cabitaanka balse waa soonka qalbiga marka qalbigu la baro in alla dartii markaa uga tago waxyaabaha uu jecel yahay. wuxuu helaa xasilooli ka duwan tan adduunka ee ku dhisan raaxada jireed. قرآنك يا حديثك يا حدودك إلهي حبيبك أدقونا حريرك سراعو حناني يدين توحوق يسونكو حناني يدين توحوق يسونكو. qalbiga sida loo nadiifiyo ama looga nadiifiyo mashquulka adduunka haddii ay loo eeglo nolosha caadiga ah. qalbigu waxa uu mar walba uu ku mashquulsan yahay raadinta cuntada, lacagta iyo sidoo kale baahiyaha kale balse ramadaanku waxa uu yareeyaa baahiyahaasi jireed taasi oo markaa siilaysa qalbiga fursad markaa uu dib ugu leefsado. xigmadaha arintan ku saabsan haddii ay loo eeglo marka calooshu markaa daciifto ruuxda iyo qalbiga ayaa xoogeysta taasi oo ku helaysa in qofku markaa uu dareemo xiriir ka dhow kii hore oo uu la lahaa Allah subxaanahu wa tacaala. soonku waa daawo markaa lagu daweeyo qalbiga. waa bisha sugayne ilaahay nasiye aynu saacidayne sooma ramadaanta. soonka dhabta ahi waxa uu ka shaqeeyaa sidan soo socota sida markaa in dembiyada carada xaasidnimadu intaa markaa dadku ay ka tagaan. sifaynta qalbiga sida markaa jirka looga nadiifiyo sunta ayaa soonku qalbiga markaa uga saaraa kibirka iyo sidoo kale naxariis daradu. qofka sooman qalbigiisu waa uu jilacsan yahay waxaana uu ooyaa si markaa fudud marka quraanku uu maqlayo waxaana uu dareemaa khushuuc marka uu sujuudsan yahay. سكرت
الموت كيو سؤاشنا تيريو عسيرة موتني صوم رمضان xasiloolida noloshu xasiloolida dhabta ahi kuma timaado hanti badan balse waxay ku timaadaa xiriirka alle soonka ramadaankuna waxa uu bixiyaa dejinta neerfayaashu inkastoo gaajo ay jirto haddana qofka sooman ee cibaadaysanaya waxa uu dareemaa deganaansho gudaha ah dulqaadka marka aad barato inaad xakamayso baahidaada ugu muhiimsan ee cuntada waxaad helaysaa awood markaa aad ku xakamayso caradaada iyo sidoo kale waxyaabaha nolosha dhexdeeda ah سكرت الموت كيو سؤاشنا تيريو عسيرة موتني صوم رمضان xiriirka ka dhexeeya qalbiga iyo digriga haddii ay lo eeglo alle waxa uu qur-aanka kariimka ku yidhi miyaadan xusida alle qalbiyadiila ku xasileelin waxaana hadalkaasi alle subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi suuratu arracd ramadaanka dhexdiisa digriga iyo sidoo kale akhriska qur-aanka kariimka qowlkii eebbe waxay toos u waraabinayaan qalbiga engegan qofka uu qalbigiisa nool yahay xilliga ramadaanku waxa uu noqdaa mid markaa aalan dhibeel dhibaatooyinka yaryar ee nolosha waayo waxa uu helay xasilooli ruuxi ah rasuulkeeni muxamed rabbi tusoo dardaaran ku saabsan soonka iyo qalbiga haddii markaa ay lo eeglo si aad u hesho xasiloolida isfiiri maalin walba isweydii muxuu qalbigaygu uu dareemayaa ka fogow sawaxanka yareey hadallada badan iyo isticmaalka baraha bulshada ee aan waxtarka lahayn si markaa qalbigaaga aad u maqasho badi ducada qarsoon alle kula hadal meel cidlo ah adiga oo sooman ربي توفره بتوصفره أننا قرعنا رمضان marka calooshu markaa la gaajeysiiyo xubnaha kale ayaa sooma markaasna qalbiga ayaa bilaaba in markaa uu la hadlo rabbigiis culummadu waxay aaminsan yihiin in dharagu uu markaa uu keeno khaleel qalbiga gaajaduna ay keento jileec markaa qalbiga ah soonka maalintii waxuu qofku markaa u diyaariyaa xasiloolida habeenkii qofka sooman ee aan dembiga markaa samayn qalbigiisu waxa uu noqdaa mid deggan oo ka madax bannaan walwalka adduunka guud ahaan daawadayaal muuqaalkeeli aan kaga hadleelay soonka iyo qalbiga helitaanka markaa xasiloolida intaas ayaan ku soo koobeynaa maantana waa maalintii 20aad ee bisha barakeysan ee ramadaan muuqaalkan daawadayaal wuxuu ka mid ahaa muuqaalo markaa aan ugu talagalnay daawadayaasheennu inaan u soo baahinno inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan sheergaray oo laagsaar si saaxiibo fara badan oo wanaagsan sidaadoo kale muuqaalku u gaaro isla markaana ay uga faa'iidaystaan fariimaha iyo macluumaadka markaa halkan aynu ku soo baahinno mahadsanidin ربي تصفره أننا قرعنا رمضان رسولك محمد ربي تصفره